Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Nabaday daawadayaal idil ahaantiinba ku soo dhowaada channelka walaasheenu Musamiira. Maanta waxa aynu fiidiyogeena ku soo qaadan doonaa laba halgamaa oo aad u caan ah. Waqtigii gumaystaha Ingiriisku uu haystay labada wadan ee Soomaaliya, gaar ahaan waqooyiga Soomaaliya iyo wadanka Suudaan. Labadan nin waa laba nin oo aad u caan oo ilaa haatan taariikhdooda la hayo. waxa ay ahaayeen haddaynu ka hore u nimaadno sayid maxamed cabdulla xasan iyo maxamed axmed almahdi oo isaguna ahaa wadanka suudaan markaa hogaamiye ka ahaa. labadaa nin waxay ahaayeen laba nin oo isku si uga dagaalamay ama uga soo halgamay oo ka dhiidhiyi jiray gumaysigii ingiriiska. waxaa jira waxyaalo badan oo ay iskaga mid ahaayeen iyo waxyaalo ay ku kala duwanaayeen. haddaynu soo qaadanno oo aynu ku horeyno waxyaalaha ay iskaga shabahayeen labadaa nin ama ay iskaga mid ahaayeen, waxa ay ahaayeen labadaa nin laba nin oo afrikaan ah, sidoo kale laba nin oo muslina ayay ahaayeen. labadaa nin waxa sida aynu horeba usoo sheegnay waxay ahaayeen laba nin oo isku magac ah oo labadaba maxamed baa la oran jiray. waa sayid maxamed cabdulla xasan iyo maxamed axmed almahdi. xagga manhajkoodii waxbarasho iyo qadiyadahoodii ay u dagaalami jireen isku mid ayay ahaayeen. labadoodaba waxaa la sheegaa inay culumta diinta iyo qur-aankaba ay yaraan ku qaybeen. xagga dabeecadda iyo dhaqankooduna isku mid buu ahaayo laba hogaamiye oo daraawiish badan taabacsanaayeen bay ahaayeen. labadooduba gumaysigii ingiriiska ayay si ba-an ula dagaalameen. waxay kaloo ka midaysnaayeen qaabkay ula dagaalami jireen gumaystaha iyagoo isticmaali jiray fardaha, warmaha iyo seefaha. labada nin waxaa kaloo wadaagayeen haladeegnimada ilaa ay gaadheen heer cadowgoodii xataa u qiro. waxay kaloo ka midaysnaayeen inay dileen jenaraaladii ugu sarreeyey gumaystaha ee labadooda wadan kala joogay. mahdigu wuxuu dilay las gordon oo ahaa taliyihii gumaystaha suudaan. sayidkuna wuxuu dilay koofil. labaduba waatii gebiga ka tirinayay. labaduba waxay dhasheen qarnigii 18aad. mahdigu wuxuu aaminsanaa inuu guulaysanayo hadduu isticmaalo hubkii nebigu calayhi salaatu wasalaam isticmaali jiray, isagoo og inaanay isku dhigmayn hubka gumaystuhu uu isticmaalayo iyo kiisu. taasina waxay keeni jirtay in ciidankiisii aada loo laayo. sayidku sidaasi lamid ah wuxuu ku dagaalami jiray fardaha, seefaha iyo warmaha, iyadoo diyaarado weliba loo adeegsanayo. taasoo aynu odhan karno diyaaradahaasi weliba waxay ahaayeen kuwii ugu horreeyey ee ingiriisku u adeegsado afrika. labada hogaamiye kumay dhiman dagaaladii ay galeen, see labaduba xanuunaayay u dhinteen. sayidku wuxuu dhintay xanuunka duumada loo yaqaano ama kaneecada, halka mahdiguna uu dhintay typhoid. haddaba waxaa jira waxyaalo ay ku kala duwanaayeen labadaa nin. haddaynu soo qaadanno qaar ka mida waxyaalaha ay ku kala duwanaayeen, waata koowaade mahdigu hadafkii uu lahaa wuu gaadhay oo ahayd inuu ka sifeeyo gumaystaha wadankiisa. oo 15 sano ayay dowladdii mahdigu ka talinaysay suudaan oo uu caasimadna ka dhigtay magaalada umudurmaan, halka sayidkuna aanu gaadhin hadafkiisii ahaa inuu gumaystaha ka saaro wadanka oo uu dhintay isagoo weli gumaystihii jooga wadanka. sayidku wuxuu dhintay 1920 Disembar oo uu ku dhintay magaalada imi. taasaynu oran karno wuxuu ku dhintay magaalada wadankiisa dibaddiisa, halka mahdiguna uu ku dhintay isla wadankiisa gudihiisa 21 Juun 1885 oo ku dhintay caasimadii uu halkaa ka sameeyey umudurmaan. sayidku wuxuu ahaa gabiye aada u xeel dheer oo aftahana, laakiin mahdigu muu gabiyi jirin. sayidka waxaa magaalooyinka jigjiga iyo muqdisho uga dhisan taalooyin lagu xasuusto isagoo oo saaran faras, halka mahdigu aanu wax taallo ah loo samaynin. taariikhda mahdigu waa casharada ugu horeeya ee maadada taariikhda ee iskuullada suudaan lagu dhigto, laakiin taariikhda sayidku iskuullada soomaalida si rasmi ah looguma dhigto, inkastoo taariikhda sayidka iyo gabayadiisiba buugaag badan iyo meelo badan lagu qoray. maanta intaasaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenna. haddaba daawade nagula wadaag kommentiga haddaad wax ka taqaano taariikhda labadaa nin. aadna waad u mahadsantihiin sida quruxda badan ee aada noola socoteen. intaynu ku kulmi doono fiidiyowga xiga waxaan idinkaga tegaynaa salaamullaahi calaykum ورحمة الله وبركاته. من ظروف لأقل ده يوين ضرب
لمغاري فرمو إيو فراش لغو غميو دويو إيو راحو أنيقو وحندون يبادر جوين هايستي دبغت مير الضيعانه الملاب دلقرايا من قرار دينكو دعديو ديفتنا لصارتي دبوح قبا طيوردو وحين لا دلقو ذي شيء وقيد الله على وحين دلقو حيي إن كستان وقارتاد إنو دلي كتورييني دحدي بدي يدالو يو طراق يدي حيلي بلكي آنو جوغنو وحينكو دغينايي واتي دادكي كلا ديدو دلولو كعايين دموخ سمو عتيقل كان كعيدها بوحيلي